haddaan dhashan gabar sawirkeedii waxaas la iskuma qabsanin arrin kale jirtay oo waxaad tirahdeen gabar baa intay dayax u imaaday ay tiri sawir baa kula galay wuxuu yiri dayax inta marka hore farxii u tagay soo qaaday. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا قلت رسالة يوتيوب كداون سنو رسالة عبدي. كسر دوبة ده يوتيوب شانل كيكو أستاذ مقعد واحد عبد سبعة حكومة قاعدين يدرس لي سكر أوكي سأل كيسين بقى تركي كلا حراي ساعدنا حل يقولون نارتين مياني ما يشنطه لغي لا تكي 4 دقيقة طبعا كي 4 دقيقة ها اوكي waxayaan idinku sii mashquulin ma garanaysaa waxa jirta arin la lahaday haddii mushaad diiday inuu gabar sawir la galo wixii hadaba beemay noqotay anigu markaan fiidiyoga soo dhigay qof baa la soo xiriiray ma garanaysaa qofkan ma garanayo Instagram-kiga la soo xiriiray kadibna codkan bii soo diray dhigeysa balodkan chok dirsle saaxiib waxa jirta xitaa YouTube-ka hada arkay نيوني أنت عندي قبل أسوي بقولنا iyo waxaas waa qabo waa been program kana qabsanay bro anaga wadnay naga asxaab kale oo badan ma fahanti oo dhalinyarta kamid ah Nairobi joogto day hadan dhashan gabar sawirkeedii waxaas la iskuma qabsanin arrin kale jirtay oo waxay armeero kala soo dhaxmaray ma fahanti marka waa been qofna muujino sawir la galo boqol gabdhood la galo sawirantooda hayna takana laagtiisu gadaalan bay ka soo degatay marka hore asaab joogiba marka waa been waxaas been yar ugu sheegin darisle waxa social media hore ban sheekada xogteeda runta iyo wixii dhacay wax walba ana u tagnaa shahid waxa oo la joogo ninka wadnay oo keensanay marka been yar ugu sheegin marka waa been waxaan leeyahay gabadh baa macnaha uu dayaxdan soo urudidi waxa waa been ma jirto waxaasi waxa la rabay kaliya in sharaftiisa soo dhig waa isku day laakiin aqal gawi noqon weydii marka waxa jira dad badan oo nacab ma garanaysaa isay kaliya ma qof walba nacab laakiin isay nacabkiisa anu ka yaabay aniga yaabay ba war okay saad ogeedeen waxa dhahay dayaxdan urushaayay gabadhi sawir ka codsatay gabadhii buu diiday bla bla marka isagii ba soo jawaabay bal isagu wuxuu yiraan eegno okay عدك بحد ديري عادي بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام دماء أمد مسلم في نفس الدولة كجوتان سومالي وين وحنا ربعنا كهلو أرين معها مدن سوشيال ميديا وغيره سيسكو هستين وأنا جاي هذا الصو. أنا جاي هذا الساعة عشان كسوحة بس ما قررنا ساعة. ورت مؤكتين قفك السوشيال ميديا اللوجو هذا هين تبدينيا إنه يدعتل المشي. تام مؤكتين أبتع. وانا قفك كليات ايه انا فاهمني يا جماعه ما قررت عنو وحي على اركم الشيء وانا قفك كليات ايه isagoo hadana maalin walba lacaayo maalin walba dadka soo horjeesinaya kor musi socda macnaha hoos ma socdo ninku de anu soo arkay macnaha qofkani qof dadkan hoos u eegay ma aha kor musi socda macnaha magaciisu inuu sii weynaanaya dadka qaarkood laakiin waxa ma fahmayeen de hadana shay ama igu raac ama igu raacin magaciisu sii weynaanaya taasna waxa u sabab ah hadal haynta ay dadku hadal hayaan oo ku saabsan sababta uu u baaqday barnaamijka lagu yiraahdo Somali International Fashion Show aniga uga baaqday okay horta marka hore wuxuu inoo sheegayaa sababta uu uga baaqday meesha sababtu maxay ahayd sababtu ma ahayn baa malayn sawiri waxa laakiin sababtu inoo sheegaya barta wuxuu yiraahdaa eegno waxaan rabaa inaan sida saxda ah oo Ilaahay inoo gahay inaan uga hadlo okay Ilaahay uu yahay baa marka taa macnaheedu waxay tahay been ma sheegayo aan ku jirin maxaa la isha been aan ku jirin maxaa la isha dabalnaan kale horta daa sharaxa barnaamijkan sababta aan u imid horta waxay invite gareyn ama casuumaad soo taqaanaa okay waxani casuumaad bay ahayd buu dhahay macnaha ma ahayn xaflad uu tagayo uu lacag qaadanayo lama soo kireysan lacag lama siinin ee waxa lagu yiri walaalo ku baahanay noo kaalay taa ogaada lacag muna qaadan bal isoo casuumay casuumadan ku imaaday marka laga hadlaayo dad baa ka soo hadlay lacag buu qaatay markaas barnaamijkan kama qayb galin arinta lacagta ah wax la yiraahdo lacag horta marka hore kuma iman waxaan ku imaaday casuumaad sharaf okay taa waan baanay horta waxa la yiri qofku markuu caloosha ka baahan yahay wuu dhargi karaa oo markuu cunto cuno ku dhargaa hore ugu sii socdaa laakiin markuu qofka qalbiga ka baahan yahay qofka qalbiga ka baahnaado waa wax adduunka ugu daran
marka qofku markuu qalbiga ka baahan yahay okay marka imika dayaxdan nuusha sarbeeb la soo baxay ma garanaysaa in anagu dadka kamid ahayna ma garanayno laakiin anu malaya dadka kamid ahay macnaha uu sheegay isagu marka saaxiib anu kamid ma yihiin Soomaali dadka macnaha anu kuma jiro dadka ka hadlaysid warajinaya markuu maanta hadda markuu duhurnimada qadeeyo waa inuu ka fikiraa maxaa hadda casirka asaliye ka dhigan lahayd maxaad ku casheen lahayd caawda maxaa biri ku quraacan lahayd maxaad ku qadin lahayd maxaa habeen dab ku casheen lahayd marka intaas si uu u helo waa inuu been sheegaa waa inuu wuxuu doono ku hadlaa waa inuu wuxuu sanduuqay ku hadlaa ninkan waliba anu yar baan ku raacsanay ninkan waa in alool adag maalin walba isagoo la caayo iska soo dhacdo dadka ma eegayba maalin walba isagoo la caayo ayuu weli soo joogaa weli fadhayn oo yahay والله وين على أذك أدي نين أذك معنا مركل لينا ده يهدلون شيء هذا سببته أن عيدا صوت نوعات كيسانية قفل بوحو دون سكري ووحى والله بالله قفل بوحى عليه وحى مسكين يسكسر العسكري هذا يهدلون شيء وحى مسكين يسكسر ويجرد الأذى بدون تاجرة وصوته المركو قاري بدي بدون تاجر ويجرد يلي لو بتاجر بدون أذى بدون بوليه لكن يصدقنا على ويجرد مركات كنا عبدون كوجو وكهلا نسجع أنا أقول بس حب يوجه الله وحياة حب بيكون لنا حتى أنا خاص مصر إيه جماعة قرب بوجه صلاة مركا وانين أذك بالورا كنا قف كذا كذا قرب مودينا فان ما فان يعني واشياء يعني وحيرون تا أنت كسو هذا الشيء برنامج كان هذا باقي هذا البرنامج كان أكبر قضي قف كسو هذا مجرى وحرونا قف كسو هذا وح سحم عنده الله هو بقي وح ماشى كده حي قف كسو هذا مجرى هرتا ويرونتي قفنا وحرونا كما هدين أنا يوم كسو هذا البرنامج كاس لكن سأنو صانو هذا سي عقلي كوتشري هاي المكان نسا أنا ما أريد يحترم شو قدرنا واحد هاي هدي أي واحد يرون تهاي فيديو بعد دونتين مرة واحدة اللي وعلي كلام كان نسا لكن سينا كنت دقين ينا نوالي يري وال السمي والله محيي هرتبل واحد ياهو بين يرون تهاي أنا ما قرنا يوم إلين واحد استحمر يقفل بكومنتيك اسكا سو قري ما غران انا ما غران سببتا انو ما غران كرنو marka waxa garan kan qofkii meesha joogay isaga iyo dadkii ag fadhiyaan ma leeyahay inkastoo uu kala mashquulsan yahay ma leeyahay xilligaas laakiin haduu dayaxdan muusha qof faniskiisa ah oo ka doonay inuu sawir la galo uu ku yiri orado xaaskay ka soo amar qaado arinta uu ku qaldan yahay hadii ay waxaan runtahay dayaxdan muusha uu ku qaldanaa inuu qofkaas aasiisa isku yiraahdo هذا هدي بقول دري عن ماشى صوته واحد هو ما ينهين لكن مولن مو قلتنا ساس مسمي وحس وقرد وحكون شيء ساسي ساس وساقد أنا محيم حان مولن هرتا نمبر 1 أنا جب حق يسود دري الرجع عزومات يسود دري هذا الرجال بانكسر بحي جوان رجال بانكسر بحي جوان رجال أنا ماشان كل ما تلك إنه هو سود دجنا كل اللي ربيه إنه هو سود دجنا كقرب جلنا برنامج بعد جبر إمارات gudaha noogu soo gashay markaas waxay dhahday salaam calaykum gabadha iyadoo waxaan u soo invite gareeyay dayax inuu u heeso nin athletic madax ah oo meeshan joogo oo ka soo qayb gala barnaamijka waxay tiri waxaan u soo casuumay inuu ninkaas aniga igu heeso aniga fahmi waayay hadalka wiilasha isu casuumay kamid ah banaanka joogo ka dhacday arinta u fiirso waxaan u soo invite gareeyay macnaha waxaan ugu yeeray isaga inuu qof u heeso kaale ninka dhulka la gashay markaas aad ku hadisay macnaha gabadha ka hadlaya ninkii ninkan waa fanaan ninkan macnaha marka la eegada Soomaalida oo dhan fanaaniya ma garanaysaa in korka la geeyo ma garanaysaa in la yiraahdo ma aha ninkan waxaan ugu yeeray bol like lacag baa la isku bixiyaa caadiyaanta lacag baa lagu bixiyaa dadka fanaaniinta caadi ahaan barnaamijka hada la adduunka kale laakiin aqli gal ma aha inta nin fanaan u yeerid oo dad fanaan oo isku tiraadi waxaan ku sheegaa waa inaad heeso qaadaan ninka madaxda like yey la hadlaysaa gabadhaasi aad buu qaldan tahay man leeyahay anu dayaxdan shaka ma hadlayo laakiin qof fanaana oo Soomaali fanaan u ah la maamuli karo macnaha lagu maamulan karo ilaa ninka ma soo geeyay malacag baadsiisay waa ma Soomaa qof kuma oran kartid marka kaalay waxay u hadlaysaa si qof dayaxdan maamulo kale adiga waxaan ku soo fayd gareeyay ma garanaysaa inaad ninkan u heystid like waxa soo kale aqal gal ma aha أنا جودها كجرو قلك أيجا مركب ماشى كبناك كمرماين أيجا مرماين مكاني ما بقولين بوا هوش المستن هوس كتر أنت برنامج كده يحتاجون شو حكى لهم عليه بانو صوته والله بكون دارنا يا سماعي داهين وأركيا أنا يقول مركب أركي واحد فاشين شو يوحل اللي جاي وحنكو أركي تيحتاجون شيء إنستغرام كيسة كهر إلى أركي والله إن واحد يشتري مع المال أوجين ببع كورن qofkii markaas waxa soo ku sameeyay page-kiisa waxa soo dhigay ee dhahay waxaasi waxa jira war anaga bun ogeysiin inuu fashion show jiro maan ogeyn waxaan boo dhanagu maan ogeyn waxa soo dhanagu
annaguna waan kasii darnayba macnaha waxaan ka hadlaya aniga iyo kuwa youtuberada kale waan kasii darnayba fashion showgii baan ka hadalnay macnaha dad baan magac u samaynayba fashion showgiinii baan ka hadalnay taa macnaheedu waxay tahay dee annaga dadka tusay waxaan inuu jiro waxaan lama ogaadeen baba hadduu dayaxtan soo dhigay aanu ma ogaadeen haddii dayaxtan loo diidin aanu kama bahadleen baba ma ifahmaysi ma waxaan ka hadlayo waxa annaga wax ka dhignay ani kaygoon ma laakiin dad badan baa jiro ka soo hadlay marka dadkaasoo dhan wax ka dhigay marka adigii wax lagaa dhigay inaad ku tiraadid fanaan dhan oo dad dhan Soomaali fanaan u ah adiga ma aragtay waxaan kugu yeelay inaad ninka heesu qadibo like ayaa tahay adigu ayaa tahay qof walba waxa fiican isagu inuu boss ku aado war adigu boss ku ahaw now adu hadda diidanta waxayna sameeyeen ikhtiyaarka adiga leh oga dhiman tahay albaabka bis inaan ka galno meesha dadku isku diyaarin lahaayeen dadku modelka ku libsanay wixii oo dhan marka taaganahay ay gabadha haddana igu soo laabteen oo maadani xaaskeed meesha isla taagan marka noo imaado waxay tiri salaamu calaykum haddii aad ka qayb galayso programka waxaa shardi ah haddii aad ka qayb galaysid waxaan macnaha fashion show waxaa shardi ah macnaha waa in aad samaysaa kaali gabadha askariyad bay ahayd waa in aad samaysaa baa lagu leeyahay waa inaad samaysaa waxaa shardi ah inaad telefishin bay sheegto magaciisa arno ma aqaano laakiin telefishinkaasna inaad berrito waraysi siiso waxaan dhahay excuse me sister maxaa u baahan tahay yaana tahay intaas ka timi intaas ka socda waxay tiri qofka programkan watay gabadha programkan dhan wadatay waa aniga okay qofkan markaa sababtu saa ugu hadlay waan gartay macnaha qofkan waa qofkii programka watay macnaha waa qofkii mooyaan idinku soo taqaaniin mooyaan lacagta ku bixiyay macnaha maskaxdan keenay tahay waxaan anaa sameynaya dadkaas baan u baahanay halaykan keeno saa yiri waxa qofkani ana horta waxba igama gelin qofka tahay islaam ma ka hadlay ana waxba igama gelin qofka tahay laakiin soo ku qaldan tahay inaad qof war anu kama hadlay yaxtan mushkilaadka macal modelada u yeeratay kuwa modelka ku ahaa ma garanaysaa ay soo socday meesha hadad qof ku oran lahayd saas samee wad ku qaldanayd sababtoo qof walba ikhtiyaar buu iska leeyahay qof walba wuxuu doono samayn karaa anu qofka inuu wiil yahay inuu gabar yahay ma kala garanayo laakiin qofkaasi uu yar kibirsan qofkaas anu dadka kibirsan noo nacaa anu dadka badankooda waxay u dhahdaan diris wallahi ina kibirsantaa lagu moodaa anu saan baan u hadlaano anigu macnaha waa saan u hadlay isma bedeli karate anu saan baan u hadlaa marka haddii aad u meelinaysin anu kibirsanahay aad iyo aad baan uga xumaay aad iyo aad baan walaaga xumaay anu ma kibirsani macnaha boqol jeer baan ku celinaya anu ma kibirsani laakiinse kibirka caadiga la sheego waa qofkaas oo kale okay waan garay lacag baad haysataa waxba isku waxaysay dad baa isku yeedhay laakiin se dadka sida ayadoo kale ula dhaqmin waa inaad samaysaa waa inaad an mar horaan dhahay bade dadka in wax laga dhiga maahaba inaga ka hadlayna anagaa qaldaba anigi horta waan qaldanayba anu imkaan idin leeyahayba anu waan qaldanaa waxaan ugu qaldanaa inaan fashion show kasoo hadlaba sababtaa magac buu sii yeelanayaa waxaan idee waxaad tirahdeen gabar baa intay dayax u imaaday ay tiri sawir baa kula galay wuxuu yiri dayax inta markuu hore farxii u tagay soo qaado horta maanyaradaas iyo aqliyaradaas iyo fudeedkaas iyo hadal daciifnaantaas qof ay ka muuqato oo dhashay oo lagu yaqaano ilaahay kama dhigin oo miyi okay arinta soo gabagabeen ani waxaan ima cadjibin bebe dayaxtanuushe gabadh uu ku yiri orod kasoo fasax qaado gabadhayda si aad sawir la gashid ma jirto waxaas been bay ahayd bamaadsantiin dadka faaniskay ah waxa hadalkay ku soo gabagabeynaya hal eray inaan isticmaashaan wixii sida dayax si qaldan loo hadlayo aragtaan hal eray bilis isticmaalatan anaa keensan qofku markuu caloosha ka baahan yahay wadhargaa laakiin markuu qalbiga ka baahan yahay ma dhargaa thank you